adduunyada dhexdeeda waa isbedbedelaya xaaladaha dadka qaar iyagoo ciidda ku hoos jira ayay hurdada kuugu imanayaan, dadka qaarna iyagoo ciiddii dul saaroona nool ayaanay salaanta kaa qaadin. waxaa laga yaaba inaad qasri degan tahay oo nolosha kugu adag tahay. waxaa dhici karta inaad dhagax seexato laakiin ilaahay laabtaada ballaadhiyey. waxaa dhici karta inaad caddaan tahay laakiin qalbigaagu madow yahay. waxaa dhici karta inaad madow tahay laakiinse nuur iyo iftiin ilaahay qalbigaaga ka buuxiyey. waxaa laga yaabaa inaad leedahay saaxiibo amba walaalo haddana aad keli nooshahay. waxaa laga yaabaa inaad keli tahay iyagoo agtaada ay joogaan walaalo badan. waxaad arkaysaa raggii asxaabta kula ahaa oo dhabarka kaa qaniinaya oo kaa tacninaya. waxaad arkaysaa raggii cadaadi iyo cadowga ku ahaa oo noloshaada badbaadinaya. waxaad arkaysaa dad aqniya ilaahay xoolo siiyey oo aan waxba bixinaynin iyo fuqaro sadaqaysanaya wax bixinaya. si awgeed buu ilaahay tan wuxuu u bixiyey dunyaa walaysat culyaa, waa tii liidatee hooseysay ee ma aha tii saraysay. dadka wanaag iyo tacaamulkaad kula dhaqmayso ha ilaawin ee dadka wanaaji. haskana canaanan laxdo aad qof wanaajisay oo aad wax u samaysay iyo wanaag, walow qofku yaanu ahaaninba mid mutay wanaaggaasi. marka dadka wanaagsan la dacniyo qalbigooda waxa ku soo dhacday inay ka goostaan. markay fursaddii kaga goosanayeen soo martee dahabka ahaydna damiirkooda wuxuu ku qayliyaa inay iska cafuyaan, alcafwu cinda almaqdira. mustaqbalkaaga imaka ha xukumin, maxaa yeelay ambiyadu raacu lghanam ari bay raaceen, uma qaadu lumam deedna ummaday haddana hogaamiyeen. sax dumarka kaydkoodu waa adag yahay, laakiin nabi maxamed sal allahu alayh wasalam dumarka kaydkooda ilaahay kamuu magangeli jirin. ilaahay wuxuu ka magangeli jiray min qahri rijaali, ragga muuqooyintooda. waxaad baaqi ku ahaanaysaa murugooyinka iyo dayaca dhexdooda maadaamat isalaatu laysat fii daa'irati ihtimaamik, inta aanay salaadu ahayn ihtimaamkaaga aan ahayn. maxaa yeelay ilaahay salaada wuxuu la xidhiidhiyey falaax iyo wanaagga, xaya cala alfalaax. fakayfa yuflixu man laa yusalli, sidee buu aflixi qof aan tukani, siduu aflixi. waxaad xorriyad u leedahay qof ficilkii inaad karaahsato, laakiin taasi kama dhigna inaad xaqiisa iyo sumcaddiisa aad ku ciyaarto. farajkana sug, maxaa yeelay ilaahay tabaaraka wa tacaala farajkiisu waa imanayaa. hadduu dib dhacana taasi kama dhigna inaanu imanaynin. ilaahay aqdaarkiisa iyo qadaradiisu waa mid mutabina biraxmaat, raxmada la xidhiidhsan, laakiin inagaa degdegayna. waxaa suuragal ah amba suuragal aan ahayn in wax ilaahay kuu qoray kayrkaa ugu tago. wuxuu ilaahay kuu qoray adigunbuu ku imanayaae fatma ina qalbigaaga xasili. nin xakiima ayaa waxaa la weydiiyey keebaad jeceshahay, aad u jeceshahay, ma walaalkaa mise saaxiibka? markaasuu yidhi waxaan jecelahay walaalkay xiinamaa yakuunu sadiiqi, markuu yahay saaxiibkay. waxaan jecelahay saaxiibkay xiinamaa yakuunu akhii, markuu yahay walaalkay baan jeclay. ma aha qof dhintay in loo ooyo, laakiin ooyinta waxa mudan qof toobadii ay dhaaftay isagoo loo ooyo. astakfiru allaha wa atuubu ilayh. waxaad tiraahdaa ilaahu hadduu jiro mid ixaasidayo ka xun wanaagayga iyo farxaddayda, ilaahu waxaad ku arsaaqday xaasidkaa farxad, arrinteedii ilowsiisay inuu aniga igu mashquulo. adigu imtixaan baad ku jirtaa, layabluwannakum, ilaahay imtixaan buu tan kuu keenay. markay laxdadii ilaahay kugu talagalay maadana warqadda waa lagaa qaadayaa. ilaahay imtixaanka uu kuu dhiibay fadlan, markaa waxay tahay warqadaada ku mashquul oo kayrkaa warqadooda ha ku mashquulin. liannahu walaa taziru waasiratun wisra ukhraa, keligaa buu ilaahay ku xisaabinaya tabaaraka wa tacaala.